agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Faysal Ali Sheekh ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay la taliyaha safiirka dalka Masar u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti oo socoto ku yimid dalka Soomaaliland. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta mudane Faysal Ali Sheekh ayaa xafiiskiisa ku qaabilay la taliyaha safiirka Masar u fadhiya dalka Djibouti oo dhawaan booqasho dalka ku yimid. agaasimaha guud oo hadallo soo dhaweynaya mahadnaqa halkaasi ka jeediyay ayaa ka waramay xiriirka Soomaaliland iyo Masar u dhaxeeya kaasi oo tilmaamay in dhawaan Masar ay bilaabi doonto dhismaha maktabadii Hargeysa ay ku lahayd dhinacyada waxbarashadana ay kaalin weyn ka geysteen taasi oo bandhigay baahida wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta. la taliyaha safiirka Masar u fadhiya Djibouti Maxamed Al-Amir oo isaguna hadal kooban jeediyay ayaa xusay xiriirka Masar iyo Soomaaliland ee ka dhaxeyn jiray waxaana uu sheegay socdaalkani inaanu ahayn kii ugu horeeyay ee uu ku yimaado Soomaaliland. la taliyuhu waxa uu ballan qaaday in baahida iyo dalabka wasaaradda warfaafinta uu gudbin doono dawladdiisa xiriir wanaagsanna wasaaradda ay wada yeelan doonaan. la taliyuhu waxa uu kormeer ku soo maray markii kulankaasi dhamaaday qaybaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta sida istuudiyaasha kaydka hadalka raadiyo Hargeysa wakaaladda wararka qaybaha internetka iyo qaybaha kala duwan ee TV-ga qaranka taasi oo agaasimuhu warbixin ka siiyay la taliyaha